cabdirashiid cabdilaahi hande oo ku magac dheer Macaane waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Salal ee Somaliland maruu haddaba maanta la hadlay warbaahinta SBC ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiskii ay gaadheen saddexda xisbi qaran ee Somaliland kaasi oo lagu xaliyay khilaafkii ka taagnaa muranka dhanka doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka Somaliland Macaane oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayana wuxuu tilmaamay runtii horta waxaan u arkaa guul in ay Somaliland u soo hoyatay waana ku hambalyeynaya xukuumadda madaxweyne Muuse Bixiye ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici sida sharafta iyo karaamada leh ay ugu soo gabagabeeyeen in ay saddexdii xisbi is-afgarad iyo wanaag iyo guul ay ku heshiyaan intaas aan ka leeyahay waan ku hambalyeynaya waa guul soo hoyatay dhammaan ummadda Somaliland muhiimadda waxaa marka ah saddexdii xisbi qaran inay marka hore isku afgartaan inay heshiis galaan marka la heshiyo kadib arintii la soo bandhigi karaa saamiguna waa wax taagan cidna xuquuqdiisa iyo shakhsiyadda xorriyadiisa iyo waxa ummaddu ay xaq u leedahay cidna wax laga xaqiri kara maaha ama la tiri karo laakiin waxa muhiim ah oo guul ah horta in xisbiyadii heshiyaan heshiiskii markuu yimaado defeeska labaad baan u arkaa aragti ahaan in ay noqon karto in laga hadli karo wixii tabashaa ee darafyada jira saamiga haday noqoto haday wax kale noqoto runtii waxaan aaminsanahay in markii hore cid la hadlaba ayna jirin xisbiga qaran oo aan isku waafaqsanaynba laakiin maanta ay dhici karto mar saddexda xisbi haday joogaan gobolada darafyadana dad baa u matala oo u fadhiya golihii sharci dejinta iyaga laga xisaabtamaya arinta meesha ay dhigeen iyo dadweynuhu waxay xaq u leeyihiin dhanaadsi oo sareysa loo kala guraaye inay soo bandhigaan oo dadkii u hadli lahaa dadka shacabka ah ay runtii aan u maleynayay in ay golaha dhex fadhiyaan ama madaxda golahaba ay ka mid yihiin ama xukuumadda meesha u sareysaba ay iyagu joogaan oo ay mowqifkooda ay marka hore ay halkaa u sii marin karaan laakiin guul baan u arkaa in maanta xisbiyadii ay heshiyaan oo feeska labaad ay noqon karto wixii la tabanayo in la isweydiiyo wararka warbaahinta SBC magaalada Boorama.